kulanti wacan dhammaan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah aan kusoo qaadan doono dhacdooyinka ugu weynaa ee sanadka 2012. hagaag dhageystayaal san hore idinkugu sheegayba waa barnaamij gaar ah oo aan gabi ahaan ku soo qaadanayno dhacdooyinkii ugu weynaa ee sanadka 2012. dhacdooyinka dhacay sanadkaas oo aad u fara badnaa hadday ahaan lahaayeen kuwa farxad ama naxdin ama la yaab ku reebay bulshada laguma soo wada koobi karo halkan. waxaan ku soo qaadanaynaa dhacdooyinkii sida gaarka ah bulshada u xiiseynayeen oo isugu jira kuwa ka dhacay gudaha iyo dibadda, sida isbedeladii waaweynaa ee ka dhacay dalka Mareykanka iyo kuwii ka dhacay gudaha Soomaaliya iyo waliba qodobo kale oo xiiso leh. soo saaraha barnaamijku waa aniga Basra Maxamed, halkaad naga dhageysanaysaana waa raadiyaha Danjir codka bulshada Ohio oo idinkaga soo gala mawjadaha dhaadheer ee 102.1 iyo 98.3 WCRS toddobaad kasta maalmaha Sabtida iyo Axadda saacadu markay tahay 4:00 galabnimo. sidoo kale waxaad naga dhageysataan barteena internetka ee danjirnews.com. haddaba sidaan wada ognahay in dhowr jeer la qabtay shirar fara badan oo mid waliba looga hadlayay arrimaha Soomaaliya, waxaase wali la arag mid lamid ah shirkii lagu qabtay magaalada London ee dalka Ingiriiska bishii February ee sanadka 2012 oo ay isugu yimaadeen madaxda sare ee Soomaaliya iyo kuwa caalamka, kaasoo ahaa mid ka duwan shirarkii hore loo qaban jiray. iyadoo shirkaas ay soo qaban qaabisay dawladda Ingiriiska wuxuu soo jiitay dad badan oo aad u xiiseynaya arrimaha Soomaaliya. waxa badi looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay ka mid yihiin burcadbadeeda iyo kooxaha argagixisada ee ka taagan dalka Soomaaliya, kuwaas oo uu ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron inaynan ahayn dhibaato Soomaaliya kaliya ku kooban oo ay tahay dhibaato dawladaha caalamka gaaraysa oo haddii sida lagu daayo caqabada aad u fulxun keeni karta. Good morning everyone, and a very warm welcome to London and to Lancaster House. I'm delighted to welcome you here and thank you very much for coming. This is not just the largest gathering of countries and organisations that has ever come together to discuss Somalia. I also believe it is the most influential. We have leading figures from governments in every continent of the world. We have leading organisations from the African Union and the European Union to the Organisation of Islamic Cooperation and of course the United Nations. But most importantly of all, we have Somali delegations representing almost every region of Somalia that is not under terrorist control. So I want to say very clearly why I've asked you all here today and what I believe we can achieve together. First, why we are all here. For 2 decades, Somalia has been torn apart by famine, by bloodshed, and by some of the worst poverty on our planet. As many as 1 million people have died. The terrible scenes that we all saw with the famine last year were truly heartbreaking, with death and suffering on a scale that no country and no people should ever have to suffer in our modern world. Earlier this week I met with some of the Somali diaspora, British Somalis, living here in Britain. Many had fled from fighting and famine, and they had grave concerns for their relatives left behind. Now of course it is natural to want to help any country in such distress.
distress. But there is another reason for the international community to help the Somali people. And that is because the problems in Somalia don't just affect Somalia, they affect us all. In a country where there is so little hope, where there is chaos and violence and terrorism, pirates are disrupting vital trade routes and kidnapping tourists. Young minds are being poisoned by radicalism, breeding terrorism that is threatening not just Somalia but the whole world. If the rest of us just sit back and look on, we will pay a price for doing so. So as an international community, it is in all our interests to try and help the Somali people to address these problems. khudbadda Mr. Cameron oo meelo badan taabanaysay wuxuu ku soo koobay inay dadka Soomaalida xalinta dhibaatooyinkooda iyaga u istaagaan oo maanta waxay Soomaaliya u baahan tahay buu yiri inay ka gudubto kumeelgaarka una tilaabsato nidaam dawlad joogto ah. wuxuu sheegay inuu la kulmay qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Ingiriiska oo ayna ka codsadeen inuu wax ka qabto dhibka haysta dalkooda. wuxuu yiri waxa loo baahan yahay in la helo Soomaaliya oo ka baxda gaajada oo ka gudubta dhibaatada argagixisada. waxa kale loo baahan yahay hooyada Soomaaliyeed in ilmaheeda si nabad iyo caafimaad leh u dhasho oo caruurta qoriga dhigaan oo qalinka qaataan. waxa sidoo kale khudbado qiimo leh ka soo jeediyay shirka madaxdii meesha isugu yimid oo uu kamid ahaa gudoomiyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Ban Ki-moon iyo wasiiradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka Hillary Clinton oo sidoo kale sheegtay inay ku garab istaagayso dawladeeda sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada dalka Soomaaliya. madaxda Soomaaliya oo ka kala socotay dawladii ku meel gaarka ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waxa kale oo weheliyay ra'iisul wasaarihii hore Mudane Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, madaxweynaha dawladda Somaliland Axmed Maxamuud Silaanyo, madaxweynaha Galmudug Maxamed Axmed Caalin iyo wufuud kale. iyagoo sidoo kale qodbooyin aad u qiimo badan ka soo jeediyay shirka oo ay ugu mahad celinayeen dawladda Ingiriiska iyo beesha caalamka xilka ay iska saareen nabadeynta iyo dib u soo celinta Soomaaliya. inkastoo ay marxalado fara badan soo mareen dalka iyo dadka Soomaaliyeedba haddana isbedeladii sanadkii 2012 ka dhacay waxay ahaayeen kuwa raad ku reebay ummadda Soomaaliyeed loona arkay in waji cusub loo gudbay. shirkii London kadib waxaa bilowday in loo gogol xaaro soo dhisidda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo baarlamaankeedii. hawshaas oo lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho kana soo qayb galeen madax sare oo ka kala socota qaramada midoobay iyo beesha caalamka. waxaa bilowday xulista guddiga baarlamaanka Soomaaliya iyadoo odayaal dhaqameedyo beelaha ka kala socda ay soo xuleen xubnaha guddiga doorashada baarlamaanka kadibna la sameeyay xubnihii baarlamaanka oo ka kooban 275 xubnood isuguna jira rag iyo dumar. waxaa kaloo lagu guuleystay in la soo doorto gudoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisii iyadoo xilka gudoomiye loo doortay Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari. halkaasoo misna laga sii bilaabay tartankii doorashada xilka madaxweynenimo taasoo murashaxiin fara badan oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku tartameen. waxayna si weyn ummadda Soomaaliyeed oo caalamka dacaladiisa ku kala nool isha ugu wada hayeen murashaxiinta kuwooda aanan kala dhicin ee wareegyadii dambe isku soo gaaray. si kastaba ha ahaatee waxa ugu dambeyntii isugu soo haray madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo ninka markaas cod ahaan ku soo xigay oo noqday Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. gudoomiyaha baarlamaanka Mudane Jawaari ayaa aruurintii codka kadib natiijooyinkii kor ugu dhawaaqay oo sheegay sidii loo kala helay iyo cidda ku guuleysatay. Bismillahir Rahmanir Rahim. wareegii saddexaad oo xildhibaanada golaha shacbiga ay ku magacaabayeen ay ku xulanayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay u dhacday sida soo socota. tirada saxiixyada ku jira liiska oo xildhibaanada ay saxiixeen waa 269. tirada waraaqaha doorashada ee aan la buuxin waxba eber weyn. tirada waraaqaha doorashada ee aan hagaagsaneyn ama xumaaday eber. tirada waraaqaha doorashada ee hagaagsan 269. tirada codadka la bixiyay 269.
wadarta waraaqaha codbixinta ee la helay 271 wadarta waraaqaha doorashada ee xumaaday eber wadarta waraaqaha doorashada ee aan la isticmaalin 2 isugeynta waxay noqonaysaa 271 codbixinta la bixiyay waxaa loo codeynaya 2 musharax oo kala ah حسن شيخ محمود يو شيخ شريف شيخ أحمد حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ أحمد وحو هلي تضلاتن يسقال عود حسن شيخ محمود وحو هلي بغل يسقاشر صادر عدد codeyntan galabta meesha ka dhacday maqribka meesha ka dhacday waxaa ku guuleystay mudane xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale khudbad yar oo mahadcelin ah ka soo jeediyay goobta madaxweynaha cusub ee xasan sheekh maxamuud bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saacado badan iyo maalin dheer oo shaqo ayaa la soo maray muddo dheer waqti la jeediyo laguma jiro laakiin waxaan doonayaa halkaan dhowr qodob oo muhiim ah inaan ka soo jeediyo ama ka sheego marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya intii i dooratay iyo intaan i dooraninba dulqaadka ay muujiyeen waqtigii adkaa ee ay socotay doorashada waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda oo si hagaagsan u maamulay ilaa intii la dhisay ilaa la doortay baarlamaankan iyo guddoonkiisa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa guddigii doorashooyinka ee sida habsamida u daadiyey doorashooyinka iyadoo ay ku dhex shaqaynayeen duruufo aan aad u jiljilcanayn oo adag waxaan doonayaa sidoo kale inaan u hambaliyeeyo inaan u mahadceliyo meesha caalamka ee Soomaaliya mar walba la garab taagan hiil iyo hooda farsamo iyo midda dhaqaale iyo midda moralka waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale guud ahaan intii ka soo shaqaysay in processkan taariikhiga ah ee madaxweynihii hore jamhuuriyadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku tilmaamay inuu yahay process taariikhi ah aan qirayaa waxa maanta halkan ka dhacay taariikhda Soomaaliya inay bogdaaba uga qornaan doonaan waxaan sidoo kale iyo si lamid ah si weyn aad iyo aad u weyn ugu mahadcelinayaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa saaxiibkaygii shalay وصاحبكيga maanta wuxuu ahaan doonaa saaxiibkayga berri hadii aan yiraahdo waxaan ku amaanayaa oo aan ku hambaliyaynayaa isbedelka taariikhiga ah ee intii xukunka uu hayay Soomaaliya ka dhacay waa arrin taariikhda Soomaaliya ay xusi doonto magaciisuna mar walba uu ka muuqan doono taariikhda Soomaaliya inuu nasiib u yeeshay inuu hirgeliyo arrinta maanta dhacday dalka inay ka dhacdo xukuumadihii kala duwanaa iyo madaxdii xukuumadahaas ee ayaguna u sabab ka qayb qaadatay arrintaani maanta inay dhacdo waa u mahadcelinayaa dhammaan waxaan u hambaliyaynayaa shacabka Soomaaliyeed
waxaan leeyahay waad ka timaadeen wadadii dibka badnayd wada toosan ayaad haatan cagta saarteen inta ka dhiman sii wada waxaana shacbiga Soomaaliyeed aan weydiisanayaa gacantooda agar la'aaneed si dalkeena dawlad geligiska hana qaada ay uga dhaqan gasho Soomaaliyana ay ku soo noqoto beeshii caalamkeed oo maanta bilaabatay waxaan aad u rajaynayaa duruufihii dibka badnaay iyo waayihii dibka badnaay aan soo marnay inay noqon doonaan beej la rogay oo laga soo tegay haatan oo noo bilowday beej cusub beejkaas cusubna shacabka Soomaaliyeed la'aantiis wax fiican kuma qormayaan sidii kuwii hore kale waxaan rajaynayaa wax ugu fiican ay ku qormaan mar kale waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhageystayaal waxaan wali ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan kusoo qaadanaynay dhacdooyinkii ugu weynaa ee dhacay sanadka 2012 halkaad inaga dhageysanaysaanna waa raadiyaha Danjir codka bulshada Ohio waa hagaag intaas kuma ekayn isbedeladii dhacay sanadka 2012 oo waxaa sidoo kale ka dhacay dalka Mareykanka isreebkii tartanka xilka madaxweynenimo dadweynaha ku nool dalka Mareykanka iyo dunida inteeda kaleba ayaa kala socday warbaahinta caalamka markii xilka madaxweynenimo ay ku tartamayeen madaxweynaha hadda xilka haya ee Barack Obama oo dhamaystirtay 4 sano ee hore una ordayay inuu helo 4 kale iyo ninka ka socda xisbiga Republican ee Mitt Romney ololayn badan iyo tartan aan waxba la isu reeban kadib waxay labada nin isaga hor yimaadeen doodo kulul oo mid walba ku soo bandhigay qorshihiisa waxaa xusid mudan dhowrkii wareeg ee la isaga hor yimid in dadka qaar siday filayeen si ka duwan wax u dhaceen dadka Mareykanka oo ku kala qaybsamay taageerada labada mas'uul ayaa si weyn u dhowrayay inay mar natiijada helaan natiijada dhibcaha ay ku kala heleen kulanadii dooda ay isaga hor yimaadeen labada murashax waxay ahaayeen kuwo aad isugu dhow oo waxa la dhihi karaa meelo qaarna waxa ku badiyay Obama meelo kalena Romney when it comes to our foreign policy, you seem to want to import the foreign policies of the 1980s, just like the social policies of the 1950s and the economic policies of the 1920s. You say that you're not interested. Years ago, you said you think we should have more troops in Iraq right now. And the challenge we have, I know you haven't been in a position to actually execute foreign policy, but every time you've offered an opinion, you've been wrong. You said we should have gone into Iraq, despite the fact that there were no weapons of mass destruction. You said that we should still have troops in Iraq to this day. But I'll respond to a couple of things you mentioned. First of all, Russia, I indicated, is a geopolitical foe. Excuse me, it's a geopolitical foe. And I said in the same paragraph, I said, and Iran is the greatest national security threat we face. Russia does continue to battle us in the UN time and time again. I have clear eyes on this. I'm not going to wear rose-colored glasses when it comes to Russia or Mr. Putin, and I'm certainly not going to say to him, I'll give you more flexibility after the election. After the election, he'll get more backbone. dad aad u kulul oo labada murashax midkoodna waxba gadaal u reeban dadkuna aad u xiiseynayeen ayay noqdeen kulanadii dooda waxaana dhamaadkii codka aqlabiyada ku guuleystay madaxweyne Barack Obama oo xilka dib loogu doortay inuu sii wado muddada 4 sano soo socota sanadka 2012 oo runtii ahaa mid lagu xusuusan doono dhacdooyin xiiso badan oo uu ka mid ahaa kulankii ciyaaraha Olombikada ee lagu qabtay magaalada London dalka Ingiriiska kaasoo si gaar ah dadka Soomaalida dareen ugu reebay iyadoo markii ugu horeysay muddo aad u dheer kadib la arkay calanka Soomaaliya oo garab suran calamadii dalalka kale ee meesha isugu yimid sidoo kale Zamzam Faarax iyo Maxamed Xasan oo noqday labada orodyahan ee matalayay dalka Soomaaliya
waxay muujiyeen dadaal aad u weyn inkastoo ayna finalkii soo gaarin haddana dadka weli waxay u arkaan inay runtii wadannimo muujiyeen taasoo farxad gelisay dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba wadankeena waa wadanka ugu barwaaqada badan waa wadanka ugu macdanta badan waa wadanka ugu hawada fiican caalamka wadankeena wadan la mid ah ma lahan hadaynu nahay Soomaali laakiin Soomaaliya waxa ku dhacay waa dagaal waxa la yiri Soomaalida dagaalkana ma ahan yani wax iyagu kaliyo ay sababsadeen waa wax yani meel kale ka imaaday sidoo kale to Soomaaliya waxa looga bartay inay yihiin dad boqolkiiba boqol islaam ah oo iswada jecel marka wallahi Soomaaliya wadan la mid ah ma filayo inuu jiro waan aad ayaan u jeclahay wadankayga insha Allah waxay dadkii soo dhaweynay ee reer London ugu sii dartay Samsam hees wadani ah oo ay aad ugu qiiroodeen dhulkaygiyo kilaygu dhalayo ku dhaqaaq barto kaadoofi maaye dhankaloon qalaad ku handhaafsan maaye intaanan dhiman laykaa dhexgeliney nar waxaan ku marayaa inaan ku dhintaayoon ka dhiciya cadowgee waa hagaag dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka gaarka ee aan uga hadlaynay dhacdooyinkii ugu weynaa ee sanadka 2012 ciyaaraha Olombikada ayaan wali ku jirnaaye waxa kale oo sanadkaas caalamka uga yaabsaday inuu noqday mid guulo waaweyn u soo hooyay wadamo ay ka mid yihiin Mareykanka, China iyo Ingiriiska oo isagu ku guuleystay orodka 10,000 iyo 5,000 mitir kuna qaatay 2 bilood oo dahab ah ninka guusha u soo hooyay dalka Ingiriiska oo ahaa halyeyga Soomaaliyeed ee Maxamed Faarax loona yaqaano Mo Faarax Sensational run by Mo Farah off a slow pace, but my goodness me. Oh, it's just unbelievable. I was not confident going to the race, and you know, in the heat I didn't feel so good, but I had to say I felt tired, so I was hoping that the guys and I would do something and try and get rid of me, so who helped me a lot, and it worked out, so it's pretty good. It's unbelievable. I just want to thank everyone who supported me. orodyahanka Maxamed Faarax oo ilaa iyo hadda dadka hadal hayaan sida quruxda badan oo uu uga soo dhex muuqday ugana guuleystay orodyahanadii kale ee caalamka arintaas oo ku mutaystay inuu tusaale u noqdo dhalinyarada baal dahabana ka galo taariikhda isagoo halka ku noqday ciyaartooygii sanadka ugu dambeyn dhageystayaal dhacdooyinkii sanadka 2012 dhacay laguma soo wada koobi karo halkan laakiin waxaan isku daynay inaan kuwooda ugu waaweynaa ama ugu xiisaha badnaa idin soo gudbino halkan idinkaga soo gudbinayna waa raadiyaha Danjir codka bulshada Ohio waxaan rajaynayaa inaad barnaamijkan ka hesheen wixii fikrad ama talo waxaad inoogu soo hagaajin kartaan emailkeena info@danjirnews.com intaas waxaan dhageystayaal uga baxnay barnaamijkeenii dhacdooyinkii ugu weynaa ee sanadka 2012 intaan barnaamijyo kale dib ugu kulmi doono waa anigoo ah Basro oo idin leh nabadgelyo